naagtan ayaa mar qurac ka soo kacday ayadoo sanduuqa meydka ku jirto oona markaa la kor taagan yahay. naagtan waxaa la yidhahdaa Fagilio. naagtan marar badan ayay wareer dareentay ilaa markii dambe dhakhtarkeeda uu ku yidhaahday markaa wareer sidaa camal dareentid shaqo iyo waxba ha aadin, iska nasa. maalin maalmaha ka mid ah marka Fagilio wareer ayay dareentay, marka siduu dhakhtarka u sheegay shaqo ay aadi rabtay wax kulli waa iska daysay, xaafadda iska joogtay. marka waxay istiri waxay yar xaafadda maadaama aad joogtid koofi yar iska hagaagsa. marka wareerkana saaid ayuu kusii noqonayay, marka uu kusii badanayay wareerkeeda saaid ayuu sii noqonayay. jikada ayay gashay ayadoo markaa hagaagsanaysa koofiyada hagaagsanaysa ama qaxwo saa u taqaanaanba hagaagsanaysa ayuu ninkeeda soo galay. marka wuxuu weydiiyey xanuunkii ka waran see noqotay. waxay ku tiraahday waa xanuunsana saaid, xanuunkina saaid waay oo markaa wareerku waa kasii darayaa. kadib wax yar kabacdi waxay tiri waxaan galayaa qolka jiifka maadaama wareerku saaid noqonayo, marka qolka jiifkaan galayaa si aan u saxdo. saan ay usoo baxday oo markaa jikada kasoo baxday qolka jiifkana aysan gaarin ay meeshaas ku dhacday. kadib ninkeeda ayaa u yimid, ninkeeda oo markaa magaciisa la yiraahda Fagili ayaa la yirahdaa Fagili ayaa la yirahdaa ayadana Fagilio ayaa la yirahdaa, magacyo way isu egyihiin marka isku qaldina. marka ninkeeda ayuu u yimid ka kici ayuu is yiri. ninkeeda wuxuu isku dayay marka inuu kiciyo, waa taabtay dhaqaaq ma jiro. kadib wuxuu wacay 112 oo ah markaa lambarka emergency-ga ambulance oo markaa ruushka saa u taqaanaan. kadib Fagilio isbitaalka loola cararay ayadoo markaan neefsanaynin, hataa wax neef aan neefsanaynin oo qof markaa meyd ahaan u eg. isbitaalka markii la tagay Fagilio ninkeeda waxaa lagu yiraahday Fagilio waa dhimatay, waxayna u dhimatay wadnaha oo markaa istaagay awgeed ayay u dhimatay. kadib Fagilio waa ka naxay dhimashada xaaskiis maadaama xaaskiis Fagilio ay wada joogeen muddo markaa ah 30 sano. laakiin Fagilio iyo xaaskiisa diinta ay haystaan ayay sheegaysa hadduu qof dhinto in la duugo maalinka labaad oo markaa uu qofkaas meyd yahay, maalinka labaad in la duugo markaa oo la aaso ay diintooda sheegaysaa. kadib Fagilio wuxuu wacay qaraabadii si markaa uu aaskii loo diyaariyay oo markaa biri loo duugo maadaama diintooda ay markaa aaminsan tahay, diintooda markaa shuruucdooda ay tahay qofka hadduu dhinto in maalinka labaad la aaso. kadib dadkii ayuu wacay, marka maalinka labaad ayaa la gaaray oo markaa la duugi lahaa. marka Fagilio wuu soo kacay xaafadii markaa xaaska ay kasoo jeeday oo markaa lagu duugi lahaa ayuu dhankaas ayuu aaday. kadib meeshii dad tuuran yahay ayuu tagay, dadkii aa markaa ugu tacsiyeeyey xaaskiisa dhimashadeeda. kadib xaaskii oo markaa sanduuq ku jirto meel geesa xagga camal taala ayuu u tagay markaa uu eegay. marka sanduuqa marka ay ku jirto qaarka hore waa laga furay si ay markaa dad qaraabada u imaaday inay arkaan rabaan si ay u arkaan. kadib uu kasoo laabtay ninkii markaa baastaga oo markaa diintooda u weynaay oo markaa inuu u duceeyo loogu targalo meesha la keenay ayuu u tagay. kadib diintooda siday qabtay ayay galeen oo markaa ducadii wixii ay iska galeen. kadib asagoo loo duceynayo markaa indhaha isku qabaa la yiraahday, sida gaalada taqaanaan filaa indhaha iskugu qabtaan. markaa indhaha isku qabo la loo duceynayo ayuu mar qura ah hooyadiisa oo oynaysa oo qaylinaysa u maqal asaga hooyadiis. kadib dhankeedu eegay, hadduu eegay waxay eegaysaa dhankii markaa xaaskiisa, dhankaasuu eegay. hadduu fiiriyo wuxuu arkay xaaskiisa markaas soo fadhiisatay. dadkii waa yaabin wax dhankeeda aadiba malaha, waa naxeen. kadib asagaa orday dhankeeda u aaday. kadib wuu isku duubay, waxaad isku dayay marka inuu kasoo bixiyey sanduuqa. kadib markaasay dadkii faamiliga ama kadib dhankaas soo aadeen, waa isku naxsanayeen. kadib waxays yiraahdeen dhulka dhiga indhahay. markuu saan u qabsaday ayay ooysay, markuu saan u qabtay oo markaa isku duubay ayay ooysay. kadib faamilkii caawiyey, dhulka lasoo dhigay, sanduuqa laga soo bixiyey. kadib ayadoo dhulka taala maadaama ay naxsaneed oo marka geeska ay eegaysay naxdintii daraadeed iyo sanduuqi iyo wix kulli in la aasi rabay ay aragtay, ayaa mar quraa naxdin daraadeed ay suuxday mar labaad. isbitaalka la geeyey, isbitaalada la geeyey waxaa la dhahay qofkan waa dhinta la dhahay. marka hore maysan dhimanin waa suuxsaneed. laakiin markii labaad naxdintii awgeed wadnaha ayaa istaagay, sidaas daraadeed marka way dhimatay. marka waxaa la dhahay inay meyd tahay loo sheegay. kadib way iska soo celiyeen, maalmay yeeshi. kadib
aasay u suubiyeen marka waa ii duugeen marka qisada saasay ku dhammaanaysa insha allah khayr aan rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu